هذا موضوع وصهره أحبابي في الله waxaan ku darsanaya anoo ku hadlaya afka culama diinka ahlus sunna wal jamaa tangal kaayo gobolka mudug waxaynu le baaq uga dareynaa meeshaan oo leenahay meeshaas fidnada ka socota ee la yiraahdo dhuusamareeb waxaynu leenahay hal la joojiyo waxaan dawladda ugu baaqaynaa fidnadaas hal la damiyo fidno axadid mikarin ya hada calanka loo tumi fidno axadid mikarin ya calanka loo tumi ciidamada la soo dhurayo ciidamada la keenayo halkaas waxa u baahan meelaha u baahan waa la yaqaana waxaan leenahay fidno axadid mikarin يا لكعين علماء أهل السنة والجماعة رسولك النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين وكل جسد واحد هل جسد آخر يوي إذا اشتكى منه عضو حين هذيك شيكته تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر جسد كدمان تسوحه iskugu wacanaya soo jeed iyo qandho ayuu isku wacanaya annagu culamaada sunna isku ximin baana waxa weeye jirkii la hayay jirida kama qoslo culimadu waa jirkeeni waa aimadeeni waxaan leenahay maanta ahlus sunna wal jamaa boqolkiiba 99.9 waata fidnana looma socdo waxaan ku baaqaynaa fidnadaas meesha laga aabulayo in la joojiyo islaaxna loo noqdo dalku waa dhaweyd buu sigtay oo mar dib u noqon tagay ilaahay baa badbaashay ilaahay baa xamdiyeena haatan mid ka daran yaa la kicin waxaan ku baaqaynaa baasha in la joojiyo culimada ahlus sunna wal jamaa xaq bay leeyihiin waa u soo dhinteen dalkan diin iyo tacliim iyo tacallum bay ugu soo dhinteen difaac bay ugu soo dhinteen nabadda lagu naaloonaya ayaga aabahu ahaa xaq uma laha maanta qoriga xaqooda loo jeediyo waxaan ku baaqaynaa qoriga meesha mudan loo jeediyo hal laga daayo meesha aamunay dad yar baa fidnada kici kara laakiin si loo damiyo waa adagta ku sii dheeraan ma hayo waxaan ku baaqaynaa arrinkaas in la